أرضي بانها أرضي بانها وبحي ودن كانها بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا مع محمد إبراهيم halkan waxaan ka sii wadanaynaa casharadii imtixaanaha aan ku baranaynay software-ka la magac baxay Tally ERP9. software-kan isticmaalaan kambaniyada waaweyn ee ganacsatada yarkaaba ama ganacsatada yarkaaba isticmaali karaan labaduba. software-kan oo very important aad muhiim ah. marka maanta waxaan rabnaa inaan casharadii imtixaanaha aan sii wadano aan mataqaana maanta qayb ka mid ah final accountiga aan hal qayb statement ka mid ah soo qaadano aan isla qaada dhigno. marka statementiga soo la dhaho trade accountiga final accountiga horta wuxuu dhigmaa saddex statement ayuu u dhigmaa oo statementiga kood waxa la waa kana maanta caawas la qaadanayno loo trade accountiga iyo ka labaad ah profit and loss account iyo ka saddexaad ah balance sheet kaas oo ku sheegaya position of the business meesha ganacsiga ugu maraya ma taagan yahay. waxaan rabnaa trade accountiga inaan isla qaadano oo marka hadda tan theory ahaan ayuu halkan u yaalaa. waxaan rabaa si practical ahaan inaan ugu sameyno muxuu ahaa software-keena Tally ERP9. marka ana already waan soo xisaabiyay ganacsigan ama trading-ka mataqaana trade accountiga waxaan soo helay gross profit. waxa ugu muhiimsan oo soo mataqaana trade account-ku ku sheego waa maxay waa inaad hesho gross profit ama inaad hesho halkan ah bay muxuu ahaa gross loss inaad khasaare ku sugan tahay oo hadda khasaare ku sugan tahay ganacsiga ma sii wadayso. haddii uu saan kale ku soo gross profit waxa waaye inaad mataqaana ganacsigan sii wado oo business-ka aad bilowdo. marka muxuu ahaa waxyaabaha ugu muhiimsan oo mataqaana trade account waxa waaye waa gross profit ama gross loss oo system mataqaana statement-ga waa very important aad buu muhiim u yahay mataqaana marka la joogo final accountiga. marka waxaan rabnaa si mataqaana practical ahaan inaan ugu sameyno software-keeni adina casharada imtixaanaha si mataqaana si taxana u sii wadan doona. marka waxaan tagaynaa muxuu ahaa marka aan sameynayno already anin company-ga waa soo sameystay company-ga waa asaasan yahay. company-ga waxaa la traders Ibrahim Traders ayaa la dhahaa oo wuxuu ka bilaabanayaa 2018 ilaa 2019 waa 1 year. marka waa kan statement-ka su'aashan la weydiiyay waa tan waxaa la yiri from the following information prepare trade account of Ibrahim Traders for the year ending 31/12/2019. marka statement-ga la siiyay sidaas ayuu ahaa bayaanka la siiyay. marka waxaan raadinayaa muxuu ahaa gross profit inaan gross profit helay ama inaan gross loss helay. marka si theory ahaan waan sameeyay oo waa kan waxaan gross profit. marka waxaan rabaa si practical ah inaan software-ka aan u helo 41,000 si toos ah. marka waxaan tagaynaa software-kan ayaa tagaynaa waxaan tagaysaa meeshaan ku qoranta information ee ku dhufanaysaa dan waxaan tagaysaa lecture ayaa tagaysaa dan waxaan tagaysaa meeshaan ay ku qoran tahay create oo multiple lectures ayaa tagaysaa create tagaysaa dan enter ayaa leedahay dan waxaa leedahay enter waxa ugu horeysa qoraysa waa maxay statement-ga lagu siiyay waa opening stock haddaas leegno waa kan waa opening stock ah 40,000 dan xaggaa tagaysaa waxaa ku qoraysaa opening stock opening stock waa labta ganacsiga ku bilowda ama company-ga ku bilowda waaye. opening stock muxuu istagaa direct expenses oo statement-gan ba wuxuu kuu sheegaya waxyaabaha la galo waxyaabaha direct-ga sida tooska expenses kharashka tooska ayaa waaye kharashka tooska waxay noqonayaan sales and purchase ina wax ama waxa dhigarta purchase and sale waxaad inaad soo iibsato ama sii iibiso oo manufacture oo kala dan waxa qoraysaa opening stock maxaa ku xigay waxaa ku xiga purchases waxaan soo iibsaday alaabtiisa waa maxay waa 85,000 ayuu kharashkeedu gaaray. dan waxaa leedahay purchases maxaa hoos tagtaa anta purchase account ayay hoos tagtaa waa maxay waa 85,000 enter ayaa leedahay. purchase maxaa ku xiga think so sales yes sales oo ah 180,000 180,000 ayaa noqotay alaabtan iibiye qiimaheeda waxaa leedahay sales waxay hoos tagtaa sales account-iga 180,000 oo credit ay noqoto ku sheegay oo ku shaqeynta mataqaana profit gaariga qaadada trade account-iga credit side-ka ayay tagaysaa credit labada kale waxay noqonayaan debit side ayay noqdeen. marka maxaa ku xigay waxaa ku xiga purchase return alaab aad soo iibsatay baad mataqaana qayb ka mid celisay purchase return waxay hoos tagaysaa purchase account ayay hoos tagaysaa waa 3,000 alaabta celiyay qiimadeedu waxay gaaraysaa 3,000.
xagga meeshan purchase return meeshan debit ka noqonaysa meeshan waxa ka dhigaysa credit say mataqaana purchase account-ga ay go'do dan maxaa purchase waxa ku xigay sales return in mataqaana adiga alaab lagu soo celiyay sales return hoos tagtaa sales account ay hoos tagtaa alaabta lagu soo celiyay qiimadeedu waxay gaaraysaa 5000 حتى كريدت ماشي نقنيسا ماشي موجودة سي ار maxay كريدت loo soo gaar marka meesha waxa ka dhigaysa debit say sales ka ay ugu go'do tan inta ayaa leedahay waatan already information la siiyay anu kuwana qaadanay wala qirto waa kan baadhistan maxay noqotay maxay 3000 ay hada laabta mataqaana celiyay alaabta lagu soo celiyay maxay noqotay qiimaheedu 5000 ay noqotay maxaa ku xiga wages oo ah mataqaana gunnada قلنا يعني وجهه ما حيروح نقول جورناتيكا dadka shaqaalaha mataqaana ku shaqeynaya hours ka shaqeynaya masaacadaha kooban laakiin aan bilaha ahayn wages waa maxay waa joornaati wuxuu noqday lacagta qiimadeedu noqday 8000 ay noqotay wages hoos tagaysa direct expenses waxaan direct expenses ahayn ma qaadanayno maxay 8000 debit ay tagaysa maxaa ku xigay waxaa ku xiga carriage oo ah 2000 carriage direct expenses 2000 what next waxaa ku xiga coal and gas and fuel coal and gas and fuel maxay noqonayaan direct expenses all maxay noqonayaan direct expenses except marka laga reebo purchase and sales maxay kulan gas imise qiimadeedu noqotay waxay noqotay 7000 dan maxaa ku xiga factory rent oo ah 4000 factory rent maxay noqonaysaa direct expenses kharashaad si toos ah oo direct expenses wax saas ma wax saas ma waa maxay waa alaabta si toos ah u soo iibsato ana sii iibiso waa maxay waa direct expenses 4000 kharashaadkaas oo dhan waxay hoos tagayaan mataqaana trade account-ga waxaa ku xiga closing stock I think so yes closing stock oo hoos u tago waa kan waa closing stock oo qiimadeedu waxay noqotay 9000 closing stocks wuxuu noqonayaa direct income bay noqonaya iyadoo expense ma waa income dakhli oo alaabta ku saarto alaab adigu iska leedahay waaye credit side noqon waa CR wuxuu soo gaabinaya meesha mataqaana markaas wuxuu soo gaabinaya CR waa credit marka waa dhamay waxa leedahay inter safe ayaa leedahay waa safe gareeyay marka hadda isla tagno isla eegno statement-ga qaybta solution-ka asarka soo helo maxay wixii siiyay gross profit maxay siiyay 41000 41 inaa faa'iido helayo hadda ganacsiga bilaabo waxa tagaysa escape ayaa leedahay escape waxa tagaysa meesha qoranta profit and loss account dan waxa tagaysa meesha qorta detail waa tan uu ku siiyay wuxuu yiri gross profit faa'iido guud ah helso maxay waa 41000 marka wuxuu tusayaa mataqaana ganacsiga hadda bilaabo waa inuu yahay 41000 ama already hadda aan bilaabay wan yar go'an bilaabay waxaan helaa 41000 marka waxaan mataqaana waa sii wadi karaa oo way faa'iido ku jirta marka trade account waxyaaba ugu muhiimsan oo ku soo maxay wuxuu ku sheegi karaa inaa mataqaana faa'iido heshay oo waxaan wuxuu ku sheegi hadda 41000 helay sanadka dambe waxaa isku dayayaa ama next time-ka aan xisaabinayo inaan 41000 aan kasii badiyo oo mataqaana aan helo mataqaana 45000 oo even inta aan jeclahay inaan mataqaana aan profit-kayga aan siyaadiyo maximum meesha ugu badan aan profit-kayga gaarsiiyo marka statement-ka waxyaabahaas oo dhan ayuu ku sheegaa oo trade account-ga waa aad muhiim u yahay statement-gan marka casharkeena inta ayuu ku saabsanaanayaa haddaan isla faahfaahino waxyaaba mataqaana maxaa كله فانسيه open store lacagta ku dhamaatay 40 kun oo ku bilownay purchase alaabta Saudi iibsan qiimaha wuxuu gaaray 85 kun maxaa ka goynay Pakistan alaabta ugu weyn maxaa qiimadeedu waa 3 kun marka total maxaa soo haray 82000 marka waa software-ka uu noo sheegay waa kan wuxuu ku leeyahay alaabta purchase account-ka qaanada wax iibsiga waxa haysaa oo ku jirta 82000 hadaa ku dhawaad 2000 waa maxay asi rabina si faahfaahsan inta ayaa leedahay
tan ku sheego wuxuu leeyahay alaabta soo iibsatay total waa maxay purchase waa maxay waa 85000 xagan waxa ku qoran purchase return alaabta aad celisay maxay qaadaysaa qiimaheedu $3,000 marka iskee bale hadda sales ka fiiro waa maxay sales account waa maxay 175000 waa 175,000 waa maxay 175,000 ku sii dhifta halkan inta dhaho laba jeer wuxuu leeyahay kan alaabta laga iibsaday oo dhan qiimadeedu maxay 180,000 alaabta lagu soo celiyay qiimadeedu maxay gaartay 5,000 ayay gaartay oo statement waa way sheegay waa kan alaabta total soo iibsaday maxay by sales waa maxay waa qaybta credit ka waaye waa 180,000 qaybta sales return oo dib aniga lagu soo celino waa 5,000 total xas ku noqotay 175,000 si toos ayuu igu sheegay software waa maxay escape de waa kan ku yiri total sales account wax iibsiga laga iibsaday maxaa ku jira 175,000 marka waxa jeclayna isla fahanay ashirkeen halkaas ayuu nagu saabsanaa inagu joogaya hadaa ma taqaana software kan taali arbin waa software aad mutaqaana cajiib oo fiican oo kambaniyada maanta si aad ay u faafaya oo ay wuxuu leeyahay shortcut badan ayuu leeyahay marka software-da dhan badan oo isla hadaa hal mid fahanto waxa ku fudaanaysa kuwa kale inaad fahanto oo kuwa kale ma taqaan si tusbax la furo kale ku noqdaan oo software isla xiriiraan hada waxa ku laga yaabaa in ku fudaan karo PHP-ga QuickBook iyo kuwa kale oo Dark Easy-ga kuwa ku fudaanada hal software xoog saarto si dibliga u dhalaaliso ama u fahanto kuwa kalena waa si ma taqaan saas oo kale waa ku fudaanayaan marka maanta waa laga guur wax la jira maana wala kontiga buug qalin gacan lagu qoro maanta wax la mid digital market wax kasta ma taqaan si digital in loo isticmaalo oo wax kasta computerizna يلا استعماله ما تعجب halkaas inagu joogayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.